muxuu cilmi nafsi yahay muxuusan se ahayn cilmu nafsigu wuxuu isku xiraa laamo badan oo aqooneed qaybi waa saynis qaybi waa falsafad qaybna waa fan nuxur ahaan waa maado ku dhisan itus oo itaabsii waxay ku qotontaa u kuurgal tijaabo iyo falanqayn ka fiirsasho leh sidoo kale waxay dalbaysaa in il gaara loo yeesho fahamka arrimaha dhumucda leh ee la xiriira xaaladaha aadanaha ujeeddadiisu ma ahan oo keliya inuu bidhaamiyo sida uu habdhaqanka dadku u shaqeeyo balse wuxuu si lamida ku mintidaa inuu faham buuxa ka bixiyo waxaa muhiima in si cad loo kala sooco urkubaallanimada oo ah dareenka lixaad iyo caddaymaha cilmiyeed dadku inta badan waxay isdhacsiiyaan inay xog ogaal u yihiin sababta dadka kale ugu dhaqmaan siyaabaha ay u dhaqmayaan laakiin cilmi nafsigu wuxuu ku talax tegayaa in la tijaabiyo mala awaalladaas dadku iska rumaysan yihiin wax sidii dhayda u cad ayaa mararka qaar qaldanaan kara sidaas darteed waaye aragnimada shakhsiga ah si kastoo xusuusteedu weli u qoyan tahay kuma filna in runta lagu caddeeyo cilmi nafsigu wuxuu kala baxaa laamo hoosaadyo badan cilmi nafsiga biolojiga ah wuxuu sahmiyaa xiriirada ka dhexeeya maskaxda iyo habdhaqanka cilmi nafsiga garashadu wuxuu daraaseeyaa xusuusta luqadda iyo furdaaminta dhibaatooyinka cilmi nafsiga korriinku wuxuu raadraacaa isbeddellada ka dhaca nolosha qofka bilow ilaa dhammaad cilmi nafsiga bulshadu wuxuu eegaa sida qofba qofka kale u saameeyo cilmi nafsiga klinikalku wuxuu diiradda saaraa caafimaadka maskaxda laan hoosaad kastaa waxay leedahay su'aalaheeda iyo agabkeeda u gaarka ah balse dhammaantood waxay ku midaysan yihiin himilada ah in la fahmo habdhaqanka aadanaha iyadoo la adeegsanayo barasho nidaamsan